adiga marka aad maanta wax dooranayso codkaagu waa kugu amaana markaynu meelaha joogno waxaad tidhaahdaan Soomaalidu way fashilmeen dawladnimo iyo dawlad fiican iyo wanaag isku hogaamin waxay u waayeen waa cadaalad darradu haddaad adiguba samaynaysid ka waran ilaahay agti waxba kuuma yaalaan حاوى حسن حسين حسن كيسي عبد الرحمن وجال أحمد محمد مدن عبد الفتاح حرسي أحمد واعدي mudanayaal iyo marwooyin haddii aad ii doorataan xilka kan culus waxaan la imaan doonaa qorshe maaliyadeed oo saxa kaasoo wax badan fududayn doona heerku hadduu guuro ahliir waa gar sahan la'aan hadduu guurana waa gardarro guri xunna hadduu degana waa galbis hadday jaacadda badda cas baan la hadlayaa guddoomiyaha haddaa ay doorataan waa gar haddaa ay gar martaana waa gardarro waxaan haystaa laba shahaado oo ay bixisay akaademiyadda afar leadership shahaado human development ah iyo shahaado leadership taasna waxay caddaynaysaa inaan aqoon u leeyahay xilkaas kana soo bixi karo intaan xabaal galo oo intaan mutaystay ila Facebook ay soo dhigi doontaane ayaa intaan xabaal galo oo intaan mutaystay oo tacsiidaan ku leeyahay akoonkeeda laga jaro iga daayay maalintaas laakiin maanta ay doortay akhyaarey anoo hoggaanka waxaan bilaabay markaan jiray 5 sano kadib markay hooyaday igu aamintay gurigayga oo aan ka soo qabtay waxyaabo badan oo ka mid ah haddii la ku idmahayo shaqooyinka ardadu ay qabtaan oo aan ka mid ahaa dhiirigeliyaashii ugu aktiifsanaa habraacu wuxuu noqon doonaa warqadda markaan akhrino guddigu ay arkaan waxaa loo gudbin doonaa mumaathiliinta musharaxiinta ka bacdi way soo celinayaan warqadda guddiga ku soo laabanaysaa shaakir xaaji cabdullaahi ducaale oo helay 46 cod sidaasna waxaa guddoomiyaha guddiga ardayda jaamacadda ku noqonaya shaakir xaaji cabdullaahi ducaale shaakir waa nin ani ila soo shaqeeyay waa nin anigu in badan aan koobgalaha soo ahaa waa nin in badan anigu soo carbiyey markaasaan leeyahay waxaan ogahay khibradaydii iyo tiisii oo isku socoto inuu dadka uga faa'iideyn doono uu dadka hore u sii wadi doono runtii waa wada guulaysanay qof khasaare ma jiro haddana waxaa inoo furan shaqooyinkii aan idin ballan qaaday inaynu si wada jiro u qabanno oo ka horta saarno barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa talo wadaag iyo maamul wanaag leyla cabdullaahi maxamed waxay heshay 60 cod sidaa darteed leyla cabdullaahi maxamed ayaa waxay noqonaysaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ardayda jaamacadda badda cas ardadan waxaan leeyahay hamiga u socoteen waa inaad guddi aad heshaan bay hay'adina waa gaadheen gabdhahana waxaan leeyahay horay u socdo wata doorashada ku guuleysteen waa mahadsantiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa xubnaha sida aqlabiyadda la ii doortay ee sharafta leh insha Allah sida aad ii doorateen baad iga arki doontaan walaalkay jaamacada waxaan leeyahay waa wada guuleysanay wada shaqayntaadana waan doonayaa salaam calaykum